بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وآدم فارح أفي waxaan ku dhashay degmada Mahadaay weyn waxaan ku soo barbaaray xamar iyo kuleejooyinka baadiriga iyo dhalinta kacaanka waxaan deganaa oo ilaa ay hadda aan guri iyo beer aan ku leeyahay degmada Shalaambood inkastoo aan soo moogahay dagaaladan oo dhan aan xamar ku noolaa waxaan ka mid ahay shaqaalaha gobolada Waaberi waxaan kaloo aan shaqaalo u ahay astaan oo caruurta ayaan hawada waxaan ka baraa artiska waxaan deganahay degmada Howlwadaag intaasi kadib waxaan hordhigay su'aal ah inuu asaga codsaday ka mid noqoshada jilayaasha taxanaha musalsalka Habboon iyo in shirkadda samaysay filimkan ee Astaan Films ay soo codsatay anigu waxaan ka mid ahay shaqaalaha astaan qofka markuu shaqaale yahayna dabcan maamulka meeshuu doono ayuu mataqaanaa uu dirayaa maamulka ii yimaadeen waa la ii soo jeediyey waana ka ogolaaday maamulka markay ii soo jeediyeenna waa ka aqbalay aniga waana ku guulaystay marka shaqaayeen madaxdii ee mataqaanaa astaanna waa ay ku farxeen sida qaabka aan u sameeyey anigana waxaan geliyey mataqaanaa maadaama madaxdii astaan ay ii soo jeediyeen inaan mataqaanaa aan ka qayb noqdo mataqaanaa filimka laftigeyga si kalsooni leh oo aan ku kalsoonahay madaxdeeda ayaan mataqaanaa uga qayb galay waana mataqaanaa si fiican aan ugu wada guulaysan annagoo dhan jilitaanka musalsalkan taxanaha ee Habboon ka hor ma jiray filim ama riwaayad Aadan Faarax Afay uu qayb ka ahaa waa kan Aadan oo ka jawaabaya su'aashaasi maya ma jirin laakiin waxaan ku kalsoonaa inaan jili karo sababtana wax kale maahan maadaama aan artista asiiba cartoonista cartoonka waa dalacad marka jinijiniga qofka laga sameeynayo waxaad u jilaysaa film camal waliba markii oo sheeko ayadoo ah waa la sameeyaa marmarna hal xabaa wixii oo dhan lagu soo koobaa marka ninka mar hadduu cartoonista yahay ama artista yahay filmna waa jiri karaa وين ارتستيال بدنو adduunkaana waa ku dhacday waxa kamid ah ninkii ugu caansanayo Pablo Picasso la dhahay actor weyn uu noqday waana ninka saxiixiisa ay gaartay markuu wax yar uu ku wacayo ay ka maadada ay ka bilaabatay $3 milyan oo jirtay 700 iyo 600 iyo 500 marka ninka artistaha waa fanka qayb weyn ayuu ka yahay waliba qayb ugu weyn la dhihi karaa waa fanaan heer caalami ah waa qofka artista markuu yahay jilaaga Aadan Faarax Afay bulsho badan markii taxanaha musalsalka Habboon ay ku arkeen kadib saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay bulshada dhexdeeda horta magacaan soo dhisay muddo aad u dheer yaa wuxuu ku bedelmay wax yar oo magaciisa saan hor kugu sheegay waa Aadan Afay magaaladii oo dhan xataa ku yaqaanay waxay ii bixiyeen ducaale waa koow tan labaad magaalada Muqdisho waxay taqaanay carruurta maadaama aan hawada kanal 2 ama channelka labaad aan mar walba ku jiro artiska aan baro carruurtu baa ay taqaan markaan dhalinyarada iyo dadweynaha ku soo darsamay maadaama sawirka uu filimka uu noqday filim aad mataqaanaa loo daawado marka waxa arkaysaa qof iga soo horbaxayo oo magacii wixii intuu ka gaari waayay si lama filaano oo dhahayo odayga musalsalka ama Habboon aabaheed ama ducaale marka magaciigi oo dhan meesha ku dhacay waa ku dhumay waxa ugu daran ilmahayga kan ugu yar هذا وجعلي دعاء عاب دعاء إلى وقصله marka taas ay ugu daran oo mataqaana wana la sheedo wax ka bedeshay mana filanayno run ahaantii in mataqaana magac intaas aan soo dhisay oo ku magac weynaado filim hal mar la sameeyo taasna waxa hadda iska leh madaxda astaan oo si aad uga shaqeeyaan siwa abshir raagan ninka la yiraahdo oo laantis filimkaas oo san waxaan qabaa inuu san si heerkaas gaari lahayn in aad u shaqo badan oo dhalinyaro aad u hal abuur badan oo ay فالعلن تاو كتمت يعني مد أنا لما فلانة هورتي وقعت إنك استو نك دايركتور كا أبشر راجع أو إيش هاي وأصيغان صح استوحوا يرمج على كابة الماوي هذا كده الدعاء الوير دوناوي اسم ده هي المركة أنا فيلم كا إلا هيركز جاري لكن وحنا نقضي صور وصومالي ملك استوجوكت دوكا يداودان مركة فالعلن توح ولا شيء كان كرما مقعي ويقبل أنا جي عام كل نقضي
laftigeyga waa jeclaystay yani inaan wax jili karo waa ogaa laakiin ilaa heerkaas inaan wax jili karo uma malaynayn hadda kadibna inaan filmaan badan idin jili doono uma malaynaa billahi horta Soomaalida dhinaca filmaanta markii la yiraahdo weligood ay ka maqnaayeen hawada marka hadda waxaan u maleynayaa in ay dib ugu soo noqon doonaan astaanna ay qayb weyn ka qaadan doonto waxyaabaha filimkan magac u yeelaa waxa ka midaba in Soomaalida ay daawadaan filmaan ajnabi oo loo turjumo af Soomaali loogu turjumo qaarna aan la turjumin maadaama kan uu yahay musalsal si rasmi ah loo jiro musalsal badan oo la jiro waa jiraan Soomaalida laakiin qaab riwaayad camal ay u jirnaayeen ay filmaan laakiin kan waxa loo jiro qaabkii filimka waana musalsal oo noloshii hoose oo bulshada taabanayo waxyaabaha keenay inay aad u jeclaadaan ka mid ah dabcan shirkadda astaan iyo annagii jilaynay iyo wixii oo dhan waxay noo tahay dhiirigelin marka waxaan u maleynayaa in hadda kadib filmaan badan aan u jiri doono oo hawada filmaanta adduunka aan ka mid noqon doono annagana aan mataqaanaa Soomaalidana ay aad ugu farxi